Cabsi xooggan ayaa ka taagan magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Jubbaland kadib markii madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ee xilligan isaga is sharaxaya isla markaana doonaya inuu is doorto ciidamo aad u badan uu soo dhoobay magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka sida ku meel gaarka ah maamulka Jubbaland. Askar aad u badan ayaa xilligan lagu arkayaa waaxyaha kala duwan ay ka kooban tahay magaalada Kismaayo, iyadoona sidoo kale musharaxiin ka bidiisan in dib isugu doorto Axmed Madoobe xilligan ay ku sugan yihiin magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Jubbaland, isla markaana qaarkoodba ay wataan ciidamo beeleed oo iyaga heeb ahaan ay is xigaan, isla markaana suurtagal ka dhigi kara in ay ka bidiidaan doorashada sida qasabka uu ku doonayo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Axmed Madoobe ayaa dhowaan magacaabay guddi doorasho isla markaana uu ku sheegay in ay qaban doonaan doorasho xor ah sida hadalka uu dhigay, inkastoo dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ay soo saartay war saxaafadeed ay kaga soo horjeeday guddigaasi doorashada ee uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, iyadoona war saxaafadeedkaas lagu sheegay in Axmed Madoobe dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland uusan awood u siinin in mar kale ama wax ka badan 2 mar uu u tartamo xilka madaxweynaha, iyadoona wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ay tilmaantay in dowladda federaalka Soomaaliya marnaba aysan u dulqaadan doonin in qalaaso laga dhex abuuro deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland, iyadoona baaq u dirtay shacabka ku nool deegaanada maamulka Jubbaland iyo guud ahaan qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalooyinka dowlad goboleedka Jubbaland sida culimooyinka, haweenka, dhalinyarada. Waxaana wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in madaxweyne Axmed Madoobe marar kala duwan la hordhigay in uu ka qaybgalo doorashada qofka iyo codka ee dhacaysa guud ahaan dalkeena Soomaaliya, isla markaana ay isku raaceen madasha wada tashiga qaran. Waxaana la sheegay in shirkii furmay bishii Oktoobar ayna soo dhaafnay in Axmed Madoobe marar kala duwan uu ka cagajiiday sidii uu ka qaybgal lahaa, isla markaana uu keenayay waxyaabo cudurdaar ah oo qaarkoodba lagu sheegay in ay suurtagal yihiin, qaar kalena suurtagal aysan ahayn, isla markaana Axmed Madoobe uu cadeystay in uu ka baxo shirkii madasha wada tashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, isla markaana lagu jiheeyay dalka oo doorasho qof iyo cod inay ka dhacdana la isla gartay. Marka laga reebo dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland, inta kaleba waxay diyaar u yihiin in ay qabtaan doorasho qof iyo cod ah oo dadku si toos ah u soo doortaan hadba hoggaanka xilligaas iyaga ay ku qanacsan yihiin. Magaalada Kismaayo ayaa caawa ilaa Saaka waxaa ka jirtay arrin cakiran oo ku saabsan xaaladda amni ee magaalada Kismaayo. Shacabka ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Jubbaland ayaan haysan xorriyad ay ku diidi karaan Axmed Madoobe maadaama si caadi ah uu u caburiyo shacabka ku nool deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaana sidoo kale jirtay in mas'uuliyiin horey kaga tirsaneyd maamulka Jubbaland isla markaana ku qanci waayay siyaasadda Axmed Madoobe in laga soo tirxiilay magaalada Kismaayo oo qaarkoodba laga dejiyay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa xilligan sidoo kale cadaadis aad u weyn kala kulmaya dowladda xulafada dhow ay ahaan jireen ee Kenya, waxaana lagu soo waramayaa in si aad ah Axmed Madoobe loogu qasbayo in uu hoggaansamo shirkii wada tashiga qaran ee lagu soo gabagabay magaalada Muqdisho, kaas oo inta badan la isla gartay in dalka uu aado doorasho qof iyo cod ah. Dowladda Kenya ayaa xilligan saaxiibo dhow la ah dowladda federaalka Soomaaliya, taasna ayaa suurtagelin karta in Axmed Madoobe isagoo jeebeysan laga soo dejiyo garoonka Aadan Cabdulle Cismaan ee magaalada Muqdisho. dad xog ogaal u ah
arrimaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay sheegayaan in Axmed Madoobe tan ay kaga duwan tahay doorashadii hore ee 2019 aynu soo dhaafnay, balse xilligan cadaadis aad u weyn uu la kulmayo ayna suurtagal noqon karin in mar kale uu isagu isu caanshubo isla markaana uu noqdo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland. Shacabka ku nool Kismaayo ayaa caawa baqdin aad u weyn ka qaba in isku dhacyo ciidan ay ka dhacaan magaalada Kismaayo, maadaama Axmed Madoobe ciidamo badan uu soo dhoobay gudaha magaalada, waxaana dadku ku sugan Kismaayo ay soo warinayaan in ciidamo kale oo musharaxiinta taabacsan xilligan ay ku sugan yihiin magaalada Kismaayo. Axmed Madoobe ayaa waxaa magaalada Kismaayo kula sugan ilaa dhowr musharax oo qaarkoodba isaga ay u wato, halka kuwa kalena ay yihiin kuwa ka madax bannaan isla markaana doonaya in xilka ay ka tuuraan Axmed Madoobe.